بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعب الصوماليات والسلامنا نكن آد أركيسان ونن قبا حنونك كورونا فايروس wuxuu ka soo baxsaday goobta lagu karantiimeeyay maadaama cudurka coronavirus uu lahayn wax dawo ah oo lagu daweeyo qofka bini'aadamka marka uu ku dhaco waa la karantiimeeyaa ilaa uu ka gaarayo muddo 2 toddobaad ama 14 cisho ah taas lagu ogaan karaa inuu qofku bogsaday laakiin inta aan la gaarin 14 cisho waxa macquul ah inuu qofku ku dhinto laakiin 14 cisho kadib waxa macquul ah inuu ka badbaado sida darteed ninkan wuxuu ka soo baxsaday goobta lagu karantiimeeyo dadka xanuunsanaya waa qof runtii qalbiga ka xasada rabana in uu galaafto dad badan oo ay la dhintaan dad badan sida aad arkaysaan afkiisa ayuu furaya wuxuu ka soo qaadayaa dheecaan ama candhuuf wuxuu marinayaa biraha tareenada ama basaska la fuulo ee ay dadku cuskadaan ama ay qabsadaan marka ay soo fuulaan sidaynu wada ognahay dhammaan qaaradda Yurub iyo qaaradaha America oo dhan basaska iyo tareenadu biro iyo dhexda ku leeyihiin dadku ay cuskadaan sida darteed birahaasi iyo marinaya candhuuftiisa ama dheecaankaasina waxa la socda fayraska corona la yiraahdo ee halista hadda ku haya adduunka oo dhan gaar ahaan qaaradda Yurubna xoog u soo galay kuna dambeeya maadaama China ku horeeyay kana soo bilaabmay sida darteed ninkan ujeedadiisu waxay tahay maadaama uu aaminsan yahay inuu cudurkani u dhimanayo maadaama cudurku ku dhacay in uu dad kala galaafto sida darteed waxaan ummadda muslimiinta ah iyo dadka luuqadayda fahmaya ee Soomaaliyeed uga digaya in ay is ilaaliyaan kana taxadiraan taxadir calaa nafsig farihiina